السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لمان halkan ka salaamaya ardayda ku xiran channelka Sayda Academy. waxaan idin leenahay galab wanaagsan, maalin wanaagsan, habeen wanaagsan. dhammaan qof walba waqtigay u tahay ayaan ku salaameynaa hadduu allidmo insha Allah. anigoo ah ustaad engineer Cabdinaasir Maxamed. waxaan halkan maanta aan ku falanqayn doonaa ama aan ka shaqayn doonaa imtixaankii dawladda sanadkii hore 2020-2021 maadada juqraafiga. maadaama arday fara badan oo codsiyo badan isoo gudbiyeen, maanta ayuu alla qadaray codsigooda inuu maanta fulo. insha Allah qaybta koowaad waxay noqonaysaa goobageli ama goobagelin. xarafka weedha saxda ah, dhammaan weedhaha soo socda adigoo u jawaabta ku qoraya buuga jawaabaha lagu talagalay ardayga inuu ku qoro. buugaasi jawaabaha ama jawaabta saxda ayaa soo qaadanaysa. buuga su'aalaha lagu jawaabayaad gelinaysaa jawaabta saxda ah. arday insha Allah gudaha ayaan gali doonaa su'aalaheena. su'aasha koowaad waxay noqonaysaa laanta cilmiga geologiga ee daraaseeya cilmiga carrada waa, yacni laanta cilmiga geologiga ee daraaseeya cilmiga carrada waa. ba waxaa la yidhi geologiga handasada. ta waxaa la yidhi geologiga saliida. ja waxaa la yidhi geologiga bay'adda deegaanka. xa waxaa la yidhi geologiga dhaqaalaha. soo marka dhammaantooda waa laamaha ama laanta cilmiga geologiga ayay hoos imaanayaan ama ay yihiin. dhammaantood waa laanta cilmiga geologiga. laakiin su-aasha ayaa waxa weeye laanta cilmiga geologiga ee daraaseeya cilmiga carradu waa tee. soo marka jawaabtu waxay noqon doontaa hadduu allidmo insha Allah waa xarafka ja oo ah geologiga bay'adda deegaanka ayay noqonaysaa. su-aasha xigta waxaa lagu weydiiyey nooca caro ee laga helo daltooyinka webiyada Jubba iyo Shabeelle. waxaa loo yaqaan yacni nooca caro ee laga helo daltooyinka webiyada Jubba iyo Shabeelle waxaa loo yaqaan. ba waxaa lagu yidhi caro lakabeed. ta waxaa lagu yidhi caro nuureed. ja waxaa lagu yidhi caro volcano. xa waxaa lagu yidhi caro dhoobada madow. soo marka dhammaantood noocyada carada ay ka mid yihiin, laakiin jawaabta saxda waxay noqonaysaa xarafka xa oo ah caro dhoobada madow ayay noqonaysaa ardaye. su-aasha xigta ama su-aasha saddexaad waxaa lagu weydiiyey ama lagu yidhi xeyndaabka ay ku nool yihiin dhammaan nololeyda dhulka oogada sare waxaa loo yaqaanaa gibilka. ba gibilka hawada. ta gibilka biyaha. ja gibilka nololeyda. xa gibilka qolofta dhulka. soo marka jawaabta saxda waxay noqonaysaa ardaye xarafka ja oo ah gibilka nololeyda ayay noqonaysaa. xarafka ja ayay noqonaysaa jawaabta saxda ah. su-aasha xigta su-aasha afaraad waxaa lagu weydiiyey arday keymo xiliyeedku waxay ku jiraan kaalinta labaad kadib keymaha. yacni keymo xiliyeedku waxay ku jiraan kaalinta labaad kadib keymaha ayaa lagu yidhi. ba waxaa lagu yidhi kulaaleyda. ta waxaa lagu yidhi keymaha cimilada dhexdhexaadka. ja waxaa lagu yidhi keymaha qaboobaha. xa keymaha caleen irbidleyda. soo marka jawaabtu waxay noqonaysaa xarafka ba oo ah kulaaleyda ayay noqonaysaa ardaye. su-aasha xigta ama su-aasha afraad waxaa lagu weydiiyey nolosha dhireed ee dhulka Soomaalida waxay ku badan tahay gobolada.
yacni nolosha dhireed ee dhulka Soomaalida waxay ku badan tahay gobolada si ba waxaa lagu yiri dhexe, ta waxaa lagu yiri waqooyi, ja waxaa lagu yiri bari, xa waxaa lagu yiri koonfureed. soo marka jawaabta saxda waxay noqonaysaa ardaye gobolka koonfureed ayay noqonaysaa oo waa xa aduu alidma insha Allah. su'aasha lixaad dhanka iyo su'aalaheena maadada juqraafiga ee imtixaankii dawladda waxaa lagu yiri sheeg ama sababaha keena diqowga ama wasaqowga hawada waxaa ka mid ah. yacni sababaha keena diqowga ama wasaqowga hawada waxaa ka mid ah ba waxaa lagu yiri xaaluufinta dhirta, ta waxaa lagu yiri bedelida hidosidaha, ja waxaa lagu yiri qiiqa gawaarida, xa waxaa lagu yiri diqowga hawada wasaqowga. soo marka sababaha keena wasaqowga hawada jawaabta waxay noqonaysaa ardaye xarafka ja ayay noqonaysaa oo ah qiiqa ama qiiqa gawaarida ayaa keena. okay su'aasha xigta su'aasha toddobaad waxay noqonaysaa hababka lagu xalin karo dhibaatada xaalufka ee kiimiko waxaa ka mid ah. yacni hababka habab ayaa jiray laakiin hadda waxaa lagu weydiiyay habka lagu xalin karo dhibaatada xaalufka ee kiimiko waxaa ka mid ah ba waxaa lagu yiri waxyaabaha laga dhambalo shidaalka oo lagu daadiyo meelaha daafaha ah, ta waxaa lagu yiri teed direedka, ja waxaa lagu yiri teedka adag, xa waxaa lagu yiri faafinta wacyi deegaanka xafida. soo marka ardayga jawaabta saxda waxay noqonaysaa xarafka ba ayay noqonaysaa oo ah waxyaabaha laga dhambalo shidaalka oo lagu daadiyo meelaha, waa jawaabta saxda ah oo ba weeye. su'aasha xigta ama su'aasha sideedaad waxay noqon doontaa waxaa lagu yiri dhibaatooyinka xagga deegaanka ee Soomaaliya waxaa ka mid ah. yacni dhibaatooyinka xagga deegaanka ee Soomaaliya waxaa ka mid ah ba waxaa lagu yiri ka faa'iideysiga beer falashada, ta waxaa lagu yiri jaridda dhirta, ja waxaa lagu yiri ilaalinta meelaha halis u ah ee daadadka. aan ku celiyo waxaa lagu weydiiyay dhibaatooyinka xagga deegaanka ee Soomaaliya waxaa ka mid ah ba ka faa'iideysiga beer falashada, ta waxaa lagu yiri jaridda dhirta, ja waxaa lagu yiri ilaalinta meelaha halista u ah daadadka. soo marka ardayga jawaabta saxda waxay noqonaysaa waa ta oo ah jaridda dhirta ayay noqonaysaa. okay su'aasha xigta ama su'aasha sagaalaad ardaye waxaa lagu weydiiyey dalka aan badda lahayn ee dhex ku jirka ah ee ka mid ah dalalka soo socda waa dalkee. yacni dalka aan badda lahayn ee dhex ku jirka ah ee ka mid ah dalalka soo socda waa dalkee. ba waxaa lagu yiri Soomaaliya, ta waxaa lagu yiri Suudaan, ja waxaa lagu yiri Uganda, xa waxaa lagu yiri Masar. arday waxaan ognahay waxa weeye Soomaali bad ayay leedahay, Suudaan sidoo kale, Masar sidoo kale. soo marka jawaabta saxda waxay noqonaysaa marka waa dalka Uganda ama xarafka ja ayay noqonaysaa ardaye ja weeye. su'aasha tobanaad waxaa lagu weydiiyey ama arday jiida duulaha ee dalka Soomaaliya waxay ku badan tahay marka jiida dulaha ee dalka Soomaaliya waxay ku badan tahay ba waxaa lagu yiri aagaga waqooyi, ta waxaa lagu yiri aagaga koonfureed, ja waxaa lagu yiri aagaga bari, xa waxaa lagu yiri aagaga dhexe ayaa lagu weydiiyey. jawaabta saxda waxay noqonaysaa arday xarafka ba oo ah aagaga waqooyi ayay noqonaysaa xarafka ba weeye. soo su'aasha xigta arday ama su'aasha 11aad maadada juqraafiga ee imtixaanka dawladda 2020 waxay noqonaysaa gobolada Soomaaliya ee soo socda kan ugu cufnaanta badan xagga dadka, yacni dadka ugu badan. yacni waxaa lagu weydiiyey gobolada Soomaaliya ee soo socda ama gobolada Soomaaliya ee soo socda kan ugu cufnaanta badan xagga dadka waa ba waxaa lagu yiri gobolada bari, ta gobolada waqooyi, ja gobolada koonfureed, xa waxaa lagu yiri gobolada galbeed. jawaabta saxda waxay noqonaysaa arday xarafka ja
oo ah gobolada koonfureed ayay noqonaysaa. su-aasha 12aad waxay noqonaysaa waxaa lagu weydiiyey gaadiidka xagga dhulka ee dhulka Soomaaliya waxaa kamid ah, yani gaadiidka xagga dhulka ee dhulka Soomaaliya waxaa kamid ah ba waxaa lagu yiri doomaha, ta waxaa lagu yiri gawaarida baabuurta, ja waxaa lagu yiri diyaaradaha, ha tareenada. soo marka anaga tareen dhulkeena ma maro hadda, diyaarada waa cirka weeye, doomahana badaha waa. marka jawaab sax waxay noqonaysaa dhanka dhulka waa xarafka ta ayay noqonaysaa oo ah gawaarida baabuurta ayay noqonaysaa. soo su-aasha 13aad ardayay waxay noqonaysaa waxaa lagu weydiiyey waxyaabaha dabiiciga ah ee saameeya bahsanaanta tirada dadka waxaa kamid ah ba waxaa lagu yiri tirada dhalashada, ta waxaa lagu yiri tirada dhimashada, ja waxaa lagu yiri socdaalka hijrada, ha waxaa lagu yiri kheyraadka macdanta. soo ardayay jawaabta saxda waxay noqonaysaa xarafka ha oo ah kheyraadka macdanta ayay noqonaysaa. su-aasha 14aad ardayay waxay noqon doontaa waxaad sheegtaa ama lagu yiri dhibaatooyinka magaalada waxaa kamid ah, yani dhibaatooyinka magaalada waxaa kamid ah ba waxaa lagu yiri habka tirakoobka dhammaystiran, ta waxaa lagu yiri dhibaatooyinka siyaasadeed, ja waxaa lagu yiri dhibaatooyinka qashin fogeynta, ha colaadaha. soo marka jawaabta saxda waxay noqonaysaa ardayay xarafka ja ayay noqonaysaa oo ah dhibaatooyinka qashin fogeynta ayay noqonaysaa. su-aasha 15aad ardayay waxaa lagu weydiiyey goobaha ugu warshadaha badan dunida waxaa kamid ah, yani goobaha ugu warshadaha badan dunida waxaa kamid ah ba waxaa lagu yiri bariga Afrika, ta waxaa lagu yiri waqooyiga Aasiya, ja waxaa lagu yiri bariga Yurub, hana waxaa lagu yiri bariga Ameerikada waqooyi. ardayga jawaabta saxda waxay noqonaysaa in xarafka ha oo ah bariga Ameerikada waqooyi ayay noqonaysaa jawaabta saxda. su-aasha 16aad ardayay waxay noqon doontaa sheeg waxaa lagu yiri sheeg dalxiiska ujeedkiisu yahay baahi gaar ah oo aan loola jeedin madadaalo waxaa loo yaqaan, yani dalxiiska ujeedkiisu yahay baahi gaar ah oo aan loola jeedin madadaalo waxaa loo yaqaana. ba waxaa lagu yiri ardayay dalxiis dhaqameed, ta waxaa lagu yiri dalxiis isir la xiriiro, ja waxaa lagu yiri dalxiis caafimaad, da'na waxaa lagu yiri dalxiis diineed. soo ardayay jawaabta saxda waxay noqonaysaa ja oo ah dalxiis caafimaad ayay noqonaysaa. su-aasha 17aad ayaan gudaha u galaynaa maadada juqraafiga imtixaankii dowladda sanadkii hore 2020-2021 waxay noqonaysaa su-aasha xigta xariiqaha xuduudeed ee dowladii ku maamusho madax banaanideeda waxaa loo yaqaan, aan ku celiyo, xariiqaha xuduudeed ee dowladii ku maamusho madax banaanideeda waxaa loo yaqaan. ba waxaa loo yiri muuqaal juqraafi, ta waxaa loo yiri xuduud siyaasadeed, ja xayndaab dhuleed, hana waxaa loo yiri jooggeeya. soo marka jawaabta saxda ardayga waxay noqonaysaa xarafka ta ayay noqonaysaa oo ah xuduud siyaasadeed ayay noqonaysaa. ardayay su-aasha 18aad ayaan gudaha u gali doonaa waxayna u dhacaysaa sida tan. waxaa lagu weydiiyey nooc ahaan xuduudaha u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya waa xuduud noocee. aan ku celiyo nooc ahaan xuduuda u dhexeysa Ethiopia iyo Soomaaliya waa xuduude. ba waxaa lagu siiyey goboleed, ta dhexdhexaad, ja handasi, ha gudaha ah. soo ardayga jawaabta saxda waxay noqonaysaa xarafka ja oo ah handasi. su-aasha 19aad ardaye waxaa lagu weydiiyey Kashmir waxay dhacdaa inta u dhexeysa ba Pakistan iyo Hindiya, ta Bangladesh iyo Uzbekistan, ja waxaa lagu yiri Turkmenistan iyo
Azerbaijan soo ardayay jawaabta saxda waxay noqon doontaa xarafka ba oo ah Pakistan iyo Hindiya ayay noqon doontaa. su-aasha xigta ama su-aasha xigta waxay noqon doontaa waxaa lagu weydiiyey isbedelka cimilada waxaa lagu tiriyaa waxyaabaha aadka loo daneeyo ee deegaanka la xiriira kaas oo soo baxay xilligii ba waxaa lagu yiri hore, ta waxaa lagu yiri dhexe, ja waxaa lagu yiri xilliyada cusub, xa waxaa lagu yiri xilliyadii geologiga. ardayay su-aashan jawaabteeda waxay noqonaysaa xarafka ja ayay noqonaysaa oo ah xarafka xilliyada cusub ayay noqon doontaa. intaas waa qaybtii koowaad ee ingiliiska. waxaa jiri doonta qayb labaad ee su-aalaha ah insha Allah iyadana waxaan soo gelin doonaa maalmaha soo socda ama hadduu aadaan waqti u helno su-aalaha iyo jawaabahooda saxda ah ayaan soo dhigi doonaa. intaan ayaan ku sameynaa ardayay waad ku mahadsantihiin socodkiina. insha Allah waxaan idin rajeyneynaa inaad guuleysataan, inaad baastaan, natiijo fiican aad keensataan ayaan igu duceyneynaa hadduu al idmo haddaan nahnay macallimiin. insha Allah waxaan rajeyneynaa arday walba oo Soomaaliyeed inuu imtixaanka soo socdo oo natiijo aad ku farxa uu keensan doono hadduu al idmo insha Allah. teeda kale ardada waxaan ugu nasteexeynayaa ustaad Cabdinaasir ahaan marka imtixaanka aad gelaysid in aadan cabsan, in aadan shoogin, kaliya bisinka ku qabo, bismillah, ha iswaalin, buuqa isku furin, bisinka ku bilaaw, si fiican u akhri su-aasha, kadib go-aanka ugu dambeeya qaado. insha Allah waxaan idin rajeynayaa guul. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.